من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والغرسكا ورحمة حالة سيتين لو عني هاي محل هيا وان في عنا نقو ما شاء الله كسولو هذا channel كايغا ان waxaan insha Allah aan rabaa inaan ka hadlo Soomaalidii hore dhaqankeedii baan doonaya inaan ka hadlo Soomaalidan maanta joogto maaha laakiin Soomaalidii hore wad garanaysaa ilaa 100 sano wax u dhow ama wax ka sheeya ama meelahaastii ayaan isleeyahay ka hadal insha Allah biidmillah sidoo dhaqanku ahaan jiray iyo sida maanta farqiga u dhaxeeya iyo sida dadkii hore madiintii ku adkaayeen mase dhaqanka ku adkaayeen dadkan maanta jooga ma dhaqanku adag yihiin mase diintii ku adag yihiin kuwaasaan maanta ka hadli doonaa insha Allah biidmillah kulli marar badan waan ka hadli doonaa laakiin maanta intaasaan leeyahay ka hadal runtii waxaa jirtay dhaqankii hore marka dumarka lala sheekaysto rag doonaya inay guursadaan waxaa jirtay in ninku gabadha la soo sheekaysan jiray marka ay wax walba isku afgartaan inkastoo Soomaalidu kala duwan tahay oo ay leedahay Soomaalidu kii gobol degaba dhaqan buu sida marka u gaaro meesha looga dhaqmo leeyahay dhaqamo badan oo kala duwan bay Soomaalidu leedahay laakiin kan ka sheekaynayo kulli waa Soomaalida dhaqan ay qayb kamid ah dhaqankeeda weey marka ninkii markuu gabadha sidaa la soo sheekaysto wuxuu imanayaa xaafadii buu imanayaa adigu talkii buu imanayaa adeeradii iyo aabihii iyo dawixii ma garanaysaa intii u dhaweyd wada talka la ahaa wuxuu odhanayaa gabadhaasaan la soo sheekaystay waan saaf garanay inaan ma garanaysaa guursadaan rabaa waaye markaa wuxuu samaynayaa waxa leeyahay waa yahay loo diyaar garoobeynaa aqal weyn baa meel laga dhisaa wada ilaahay waa weyn oo waaxid ah aad weyn reemiyi ah aqal miyimaan ka sheekanaya maadaama inagu asaliyan aynu ka soo jeedno miyiga aynu ka soo jeedno oo nolosheenu miyiga ka soo bilaabatay marka aqalka weyn marka meesha laga dhiso waxaa la keenayaa gabadhii oo dee bilaadhara waa la keenaya aqalkan waxaa loo dhisaayana gabadha meesha in la keeno waxaas oo dhan waxay kamid tahay maadaama waagii hore oo dee berigaa hore dumarka waxa laga bixin jiray xoolo aad fara badan baa laga bixin jiray marka xoolaha faraha badan gabadh u qalanta waa in la helo marka dhaqan bay u lahaayeen halkaas guri laga dhisi gabadhiyo sidii hooyadu dhashay baa la keeni meesha waxaa fadhiyo maqaawiir baa fadhida maqaawiir waaweyn oo xulaha fadhida oo sida dumarka for example marka dadweynaha kale la joogo waxaad maqashaa maanta Mrs Wall iyo maqashaa gabadh baa quruxda qaaday dumar baa dhar xaysiinaya dumarkii quruxda waxaasaad maqashaa taas waxay ka dhigan tahay quruxday ka dhigan tahay gabadha meesha la geenayo dharka laga qaadayo waa qurux waxaa la eegayaa gabadha waxa marka guriga la keenayo sida hooyadu ku dhashay halka la ganax leeyahay marna xagga u sii soco marna xagga u soo soco ceema marka la islaamo yaabayo ceebna ma waayo waa dhaqan waxaan ogaataa mar walba diintu maxay ka qabtaa diintu waa sidee weeye inay gabadha intaas oo ragi iyadoo qaawan marna xagga u socoto diintu waxa weeye khalad weeye gabadh qaawan inay rag soo hormarto waa diinteena mamnuuc bay ka tahay laakiin waxa halka ka dareemaysaa dhaqanku inuu ka adkaa dhaqanku inuu wax adag ah oo diinta ka adag yahay hadda maantadan lagu jiro diinteena iyo dhaqankeena waxa inaga ahaan Soomaali ahaan inoo adag dhaqanka marqaatina waxa uu ah wiig ka hor nin Soomaali ah ayaa wuxuu caayay isagoo waliba dhul Soomaaliyeed jooga wuxuu caayay diinta iyo nabigeena kaleey salaatu wasalaam cid ka gilgilatay cid ka hadashay cid soo qabatay caadi buu u maraayay u mushaaxiyay magaaladiisa wax weyn looma arko laakiin laba hadduu mid ama dhaqanka wax ka sheegi lahaa
ama qabiil waxa ka sheegi lahaa isla markii waa lasoo qaban lahaa markii waa laga wada hadli lahaa halkaa marka waxaa kaaga cad in dhaqankeenu adag yahay laakiin diinteenu aan adkayn oo dadku diinteenna ayna aan garanaysaa ayna waxba u arkin in wax lagu lacaayo iyo wixii diinta ka soo horjeeda in la sameeyo iyo marka waxa jirtay marka gabadhaasu marna xagaas bay socotaa inkastoo dadkii hore diintu way ku yareeyeen maanta sida diinteenu meel walba inooga soo gashay iyagu may haysan laakiin haddana dad caaqidadoodu iyo diintu macnaha iska dhisan bay ahaayeen oo waxan baase ma garanaysaa meediyaha faraha badan ee balaayo walba la soo gelinaya dadkii indhihii ka macsiyeysteen oo waxaan ku yidhi fadeexad socota meediyuu fadeexad buu noqday waxayna arki jirin baa la arkayaa dadkii hore dad iska meel iskaga jiro miyig degan oo aan waxba indhahooda arkin bay ahaayeen wax xunta indhahooda aanay qaban marka gabadhaas marna xaggaas u soconaysaa marna xaggaas u soconaysaa haddii gabadhaasu marka dhag ay noqoto ilaa waxa dadkan ay ka xisaabtamayaan odayaashan waxay ka xisaabtamayaan waa xoolaha ka baxaya gabadhaasi ma u qalantaa gabadhaas marka waad garanaysaan oo waa inay gabadh dheer noqoto gabadh dhexyar noqoto gabadh indho waaweyn noqoto oo gabadh af madow noqoto oo gabadh kuba waaweyn noqoto oo waad garanaysaa waxyaabahaasaa la rabaa dhag intaasoo xoolaha oo geel ah la bixinaya malaha geel iyo qori iyo faras waxbaa la bixin jiray waxaa ma u qalantaa gabadh u qalanta ma tahaa haddii marka u qalanto waxa dhag confirm way baaskaraysta way baxad gabadhaas waa socoto haddii laakiin ay socon weydo waxaa leeyahay may kuma qalantan tanu xoolaha aanaynu bixinayno uma qalanta wuxuu isagu doonayo micno badan ma samaynayso isaga uma danaynaya laakiin xoolahaasunba iyagu markaa danaynaya laakiin laga yaaba ninkan inuu gabadhaa jecel yahay isagoo ku qanacsan yahay laakiin isaga waxaa laga dhaadhicinayaa may maadaama xoolo fara badan ay naga baxayaan tan inooma qalanta weeye halkaasay gabadhii dharkeeda ku qaadanaysaa gabadhii ceeb uma aragto waayo waxaanu dhaqankay ka mid tahayba waaba wax iska caadiya oo dhaqan aad u culus oo adag dee weeye marka waxba uma aragto horta taas waa taas oo taas waa qayb ka mid a soomaalida qayb kaloo iyadana waxaa jirta soomaalida ka mid a oo ninku markuu doonayo inuu gabadh guursado muxuu sameeyaa habeenka marka la seexdo ayuu subaxdii aqalka hortiisa ku saxrooda aqalka kadinkiisu dee meesha laga soo galo ku saxroonayaa aqalka xaggiisa dambena wuu gelayaa subaxdii markii waagu bariyo xaafadii lasoo toostoo la yiraahdo dee albaabkii ha la iska furo dee albaabiyo ma garanaad wixii dee meesha markaa jiray ayaa waxaa hortii waa kadinkii barti laga soo geli lahaa ama laga soo bixi lahaa waxaa yaallaba saxaro weyn baa taal markaasay odhanayaan baa lidhi waryaa faanayo faantadan meesha dhigay ninkii oo bahal warana saa ula urdayaa intuu meesha ka soo baxay wuxuu leeyahay war aniga faanayo faantada meesha dhigay wala wax meeshii baa laga wada garanayaa laga yaqaan dhaqankaas bas ninkaasaa gabadhii marka la siinaya dhab lagu siinaya taa oo taasna waa qayb ka mid a soomaalida dhaqankeeda qayb kale iyadana waxaa jirta ninku markuu doonayo inuu gabadh guursado waa inuu libaax soo dilaa intuu libaax soo dilo isagoo saa u laalaadinayo qoortiisa waa inuu keenaa oka libaaxi markaasaa loo fahmo waxa leeyahay yes waad baastaa adigana waxaa weeye nin libaax dilay soonaa ka maqashay in libaax sanka taabtay nin libaax soo dilay waa nin rageed markaasaa gabadha loo aroosaya la siinaya haddii kale aanu keenin gabadha ma guursan karo marka runtii dhaqamada soomaalidu waa fara badan yihiin laakiin aniga dhaqankii iigu yaab ka badnaa buu ahaa gabadh la qaawiyey oo intaas ragga hormaraysa ayaa soomaali ka dhacday runtii waan la yaabay qisadaasna runtii ilaahay baa igu ogey nin weyn oo soomaaliya iga sheekeeyey waxa inii sheegayana wax anigu aan iska mala awaashina ma aha alla igu og waxa dhan waa laiga sheekeeyey waa sheeko dhacday oo laiga sheekeeyey soomaalidu dhaqan u lahaan jirtay baa liin dhaqamo kale oo fara badan oo soomaali leedahay way jiraan dib baan kaga hadli doonaa insha allah laakiin tan waa mid la garanayo oo dad ay isticmaali jireen soomaalida ka mid ah marka anigu keliya waxaan usoo qaatay waxay ahayd soomaalida dhaqanka
iyo diinta keebaa u weyn keebay qadariyaan marka runta laga hadlayo anugu soomaalida lababa waan ku arkay dhaqanka iyo qabyaaladda labadaas aad ugu weyn haddii waxaan isleeyahay labadaas Soomaali ay ka suuri lahaydna dad wanaagsan baan noqon lahay oo kulli runtii dhibaatooyin aad u fara badan oo maanta ay haysta ilaahay uu inaga saari lahaa laakiin dad diintooda ilaashada ma nihin dad waxaan nahay ma garanaysaa dhaqanka ka hormariya marka kulli wax walba waxa u fiican in diinta laga hormariyo waayo waxa la rabaa dhaqankaaga iyo diintaada inay isleeyihiin oo dhaqankaagu ku salaysan yahay diinta oo wixii diinta kuu diidana aad iska daysid wixii diintu raalli kaaga tahay oo dhaqankaaga lagu dabaqi karana la sameeyo xagga qabiilku ilaahay baa inaga wada dhaliyey oo qof walba qabiil weeye laakiin qabyaaladdu waa waxa yacnaa qof walaalkaaya oo waxba kuu geysan oo laga yaababa kan adiga hooyadaa dhashay kaaga manaafacaad badan inaad ku eridid ree hebel buu yahay taasaa la diidan yahay ta kale anigu waxaan ka yaabanahay qofka isagoo yeelan kara meel walba seexan kara oo meel walba ku yeelan kara saaxiib wuxuu cadow u samaystaan garanay cadow inaad gacantaada ku samaysatid qofku isagaa cadowga gacantiisa ku samaysta isagaana nabadgelyo waayo cadow markaad maqashid waa nabaddarro marka adoo nabad samaysan kara inaad cadow samaysatid wax kugu kallifaya garan maayo reer fara badan oo milyanis ah inaad difaacdo adoo shakhsi ana oon ku ogeyn na garan maayo waxa kugu qasbaya waa khaatumo xumo weeye iyo dembi marka waxaan leeyahay adoo nabad heli kara walaalka hawlaysan cadowna ha samaysan ha ku deeqdo soomaalinimadu xabaal yar baad gelaysaa reerahaas sheegaysidna kula geli maayaan adigun baa gelaya bes un keligaaba afka lagaaga goynaya camalkaagina waa xalli waa kana wixii adduunka ku geysatay haddaad reertu maanta dhan naq ree hebera naq lahayd reebel markaad cadaabta gasho may kaa soo bixinayaan waa may adun baa isdaariyey marka adaa xabaashaadii muxuu ahaaye maxaan ku dhahdaaye camalkaagii adiga cadaabku bedeshay marka waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala haynaga suuriyo haddaynu ummadda Soomaaliyeed nahay cudurkaas iyo kuwii diinta difaacana ilaahay naga dhigo kuwii dhaqankooda diinta ka hormariya dhaqankooda ilaahay naga dhigo oo difaaca oo nabigooda calayhi salaatu wasalaam difaaca oo ilaahay difaaca oo diinta difaaca adoo diinta difaacay waa adigoo alle iyo nabigiisii difaacay marka waxaan leeyahay caawinta sindooniyana ka hadlo runtii markaan runtii arkay meediyaha markaan arkay sida diinta loogu geliya waxaan tirnay dadkan Soomaaliyeed horta wax hore oo jiray wax hore waxaan ma wax asal u lahaayeenba oo weli ka tanaasulin qabyaaladda iyo maxaan ku raahdaa iyo diinta qabyaaladda iyo dhaqanka labadaasi keebaa horeeya dhaqanka iyo diinta keebaa horeeya marka wax ii soo baxday wixii sidaan ku wadayay ii soo baxday ama sidii aniga ila noqotay ama sidaan arka ii noqotay marka dhaqanka noocan inaynu isku daynaan insha Allah ilaahay ka rajaynayaa waana mahadsantihiin caawintaasaan kusoo gabagabeynayaa waad mahadsantihiin dadka ay daawadaan waan u mahadcelinayaa kuwa subscribe-ka isiyana waan u mahadcelinayaa qof kastoo walaalkay oo Soomaaliyeedna waxaan ku codsanayaa oo ii dareema inaan wax ka sheegina ha isaamaxo insha Allah biidmillah anigu qofna uma jeedi guud ahaan ummadda Soomaaliyeed baan u jeedaa oo waan leeyahay walaalayaal waxaan iska dayno reer gooniya kama hadlin shakhsi gooniyana kama hadlin insha Allah biidmillah ku jannada isku wareysta ilaahay naga dhigo diintoodana difaaca kuwii diintooda difaaca oo wax walba diintooda ka hormariya insha Allah ilaahay naga dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh